يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، خطبتي هره waxaynu ka soo hadalay ilaalinta hantida ummadda iyo xumaantu leeyahay ku xadgudubkeedu. khudbadanina taa qayb ka mid weeye ama way isku dhow yihiin oo mas'uuliyadaha iyo xilalka caamka ah ee ummadda ay wada leeyihiin ee ka dhaxeeya iyo waxyaabaha islaamku ka yiri way afar qodob ama shan qodob baynu ku soo ururin. مفهوم الأمانة في الإسلام، مفهوم المسؤولية في الإسلام، مسؤولية حلقة ومضى الله يا إسلام كسيدو شرح أمانة لنعاس. عدم المسؤولية في الإسلام يا مسؤولية ومضى الله هل كي تاجنتها إسلام كالحديث قرض الله. الأسس التي تقوم عليها أمانة المسؤولية في الإسلام، أمانة الله حديدة حلقة تيرك أي كنت تاجنتها حاجة دينتي أنا مركز لك أما شروطها الله حرية. خطورة التفريط في أمانة المسؤولية في الإسلام يقف كحد قد بحمان تولاي. كيفية اكتساب أمانة المسؤولية يهبك قفك أو أصلا ما يسن كرا أهرنتها أما أينو إنه بدتك أبرك كرنا إنه تعليمين كرنا وجوه الرين مسؤولية ده إنه كهذا لينا أمانة المسؤولية ده إنه كهذا لينا معها وحكوابا استددك قاركود أي وامسيهين حول الله يسودي بتاعي وحيل مده، لكن وحيل كعام كأه إلى هاي وقف كساري نفتيسة قيس كيسة يوم ديسة انتباه سكار هانت ويسيك لميسان بدين وحاو مدى كدحيا حلال كأه إنك عنت ضدك الله قبطه وهوش عين كاسة أدقاده وحسهل الماها. قرآن كنا سيجار ويسودر تاجي نبينا عليه الصلاة والسلام وقد يقو وقد يريي ضد كان حلكا أي قادين كسب بحكرين ولو أصحابي بها هذا وكتشوتشي النبي عليه الصلاة والسلام. آياتها إنه آخرين وحى أركي سنية إلى هاي أمر وكب حياه ضد كأو فري حلكا يوهيان دفتي سيني جارسيان ضدك وأنا يدحض فريسانين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمانوينك إن أهل كود جارسيسان، أمانة مالك، أمانة حلالك قيبين تودا هي خيراتك يا منافعنا. إلهي وحكوا أمانة ضدك مؤمنين تا إن يهين كوا أمانة ذو سيدا وقف عنه قته أو إلالية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أمانة إذا أدت كورن لو مديبه، لكن أمانة حلك عامك ومدى كوضع بحياة وحاي شراكة كوة يهين أي وذا لا يهين تطلع حليبا يا شاه أو كمل الدالين كراه ولقوا آمين sidaa daraadeed baa dadkoo dhami aanu wada kari karin oo qofku wanaagu wanaagsan yahay iyo xataa aqoon uu leeyahay daraadeed kali kuma filla, laakiin sifaad gaara iyo tilmaamo gaara ayuu xilkaasi u baahan yahay in loo xulo qofka qabanaya. rasuulullaahi maxamed sallallahu alayhi wa sallam oo arintan ilaahay uu ku aaminay oo aaminkii ugu weynaa bacda allah makhluuqa marka la eego asxaabtiisa uu kala xulan jiray xilalka mid waliba meesha uu munaasib ku yahay buu u dhiibi jiray. maalin maalmaha ka mid ah baa wuxuu la hadlay sida uu tilmaamaya xadiidka saxiixa muslim ku sugan asxaabtiisa mid ka mid ah oo ah raggii amaanada badnaa
cibaadada badnaa ee jacaylka diinta u qabay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wasxaabiga Abi Dharr la oran jiray waxa uu inni araak ya Aba Dharr innaka dhaif wa inni uhibbu ilayka ma uhibbuhu li nafsi Abi Dharr adigu waxa tahay nin itaal daran baad xagga xilka marka la eego dhinaca kala qawi buu ka yahay waxa naftayda la jecelahayna waan kula jecelahay xilkaasina waxa weeye waa khizyun wa nadaama waana wax qofka dulli u keenaya waxaan u qaban karayn markuu u baxo maalinta qiyaamahana waa wax uu ka murugoon doono illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha qofka waajibkiisa guta ee xaqiisa mariya xilka mooyaane marka halka rasuulku sallallahu alayhi wasallam asxaabta qaarkood markay soo islaamaan iyagoon xagga iimaanka iyo aqoontooda aanu aad ba u badanin ama aanu wax badan ba nabigu barin xilalka u dhiibi jiray asxaabigan qadiimka ee waqti hore soo islaamayna xilka iska daabulay waxaynu garan karaynaa dadka qaarkood macaanka iyo wanaaga iyo daacadnimada ay leeyihiin in laga faa'iideysan karo oo qof kasta oo wax u sheegaba laga yaabo mararka qaarkood inuu rumaysan karo xilkiina sidaa kaga qaloocan karo in amaanadan iyo xilkan la dayaco mas'uuliyadan ummaddu ay wada leedahay oo aan meesheedii munaasibka ku ahayd la dhigin oo xilalkii la xumeeyo si wanaagsan loo qaybiyo oo dad aan helahayn loo dhiibo waaba mushkiladda inagu badatay waa calaamooyinka qiyaamaha sidoo rasuulku cadeeyay sallallahu alayhi wasallam hadii saxiix ah Abi Hurayra warinay ninba nabiga weydiiyay qiyaamada oo iyo calaamadaheedo nabigu waxa uu marka aad aragto amaanada oo loo tiiriyay ama loo dhiibay xilkii cid aan ehel ahayn fantadir saaca kolka qiyaamada sog oo waa maxay buu amaanada la luminaya wuxuu ida usnida al-amru ila ghayri ahli fantadir saaca ala dadkiyo aan loo eegin qofkeeba munaasib ku ah waxyaabo kale loo eego reer hebel miyuu yahay ma waxbuu isiin karaya ma isagaan wax ku qarsan karaya ma isagaan wax cuni karayna ma isaga demdemla oo afmiishaar oo orod badan wax badan oo kale oo aan diin iyo islaamnimo iyo dhaqan wanaagsan ba ku salaysteen marka loo eego ee cid aan ehel ahayn xilka ummadda loo dhiibo qiyaamadii way soo dhowdahay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam sidoo kale amaanadaasi mas'uuliyadda ummaddu maadaama ay sidaa u qara badan tahay oo hadday hagaagtana ummadda islaamku hagaagi karto hadday qaloocatana dal iyo dadba uu ciiri karo waxa uu islaamkeenu diiday oo rasuulku cadeeyay sallallahu alayhi wasallam qofka codsada ee uu campaign u galay iraada aniga hal ii dhiibo ina loo dhiibin ilaa ay yakuna mutaayana midda isagu laga fursan waayo ka dadka ugu mudan ah mooyaane sidaynu ku arki doono qisada nabi Yuusuf alayhi salaam qofkii dadka u mudnaa inuu yahay mooyaane kol hadii la dhaamo inuu isa soo qadimo islaamku ka waxba uma dhiibayo waxba yaa loo dhiibin bali Bukhari waxa ku sugan asxaabi la oran jiray Abdurrahman ibn Sabura ayuu nabigu la hadlay alayhi salatu wasalaam markaa wuxuu Abdurrahman aw la tas'al al-imara waxba xilkan ummadda ka dhaxeeya madaxtinimada ha codsanin oo dhiiba ha oran raadsanin fa innaha in utitaha an mas'alatin wakilta ilayha haddaad codsi qadinto oo sidaa lagu siiyo ilaahay garabkaagu ka baxayaayo adiga lagugu eegaya wa in utitaha min ghayri mas'alatin u'inta alayha haddii lagu dhiibo lagula soo doonto oo lagu garto adigoo ku wanaagsan daraadeed ilaahay baa kugu garab galaya asxaabiga markuu nabigu la hadlay alayhi salatu wasalaam xadiidku keligii kuma koobna si caam u hadlaya waxa si cadeynaya xadiid kale isaguna saxiixaynka ku sugan min xadiith abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wuxuu nabi Muhammad baan u galay alayhi salatu wasalaam waxa ila socda laba nin oo qoladaydii kamida mid kamida baa wuxuu amirna ya rasuulallah وقال الآخر مثله mid baa hadla wuxuu nabi Allah shaqan doonaya in xil ay dhiibo ayaa rabaa dadkii adigan xilalka u qaybinaya kii kalena kamu harin be aniga laftigayga boosraad isagu
وأنا ميل باندونيا مركا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه حل كان الشيء إنسان أنه ومدي ابن هذان المسلمين تنهاي قفك عصده يك كد داله لبضا مدنوا وواحد سويدين لم حاله قدي ذي قفك إلا يثبتك أمبو كبدي هاي وحاله قدي ذي وحكم وضعين ودنايسنا ينودتك ودناينين وأيامك هذه لعجة معناها فربضن وأذوق أنا ذو حبابك كلهين لجوك كانوا ولو لا خير الله كسي قصدت إنه يريدوا بال أفر سنوات نوها إلى حلك أفر سنة إيه لبس سنة إيه شخص مدة لقبتها ويرى سنة نوهاي لعجت أنت عليه أنتوا قفكوا هريرها يا جابوا لي أذر عيد كلام ياد ويدي حولها نوي يقول عميان يعني لو حن كفى إذا يا متر وأمانة هذا هو بعدين قبصن طنطا هدي وحن يقول عانا ما لحظة يقول أي دعمانا ما لحظة مركع عيد كلا هذه مدو كم سنة يا قفقاس إلا إنه يسلي هيدا كل قيس أو كل ضنيس أما كفى إذا يسمو يعني كاسو بهرا وقبل كرا مركع مسؤولية دان أمد الله يا أنا واساس وكلا ووح مد الله هذه هي غير كينية هو يدا هي أبها من ملها هو وح أمد كرد حياة ومسؤولية دي سادراد مركع هذا وحي وبدنت هاي إن أنا إيجا ودنين إنني هذا هو الدنيسان يصاد وحسلاد هاي كراسة هذه جاي عدة متليس استاد رادد بقفك اللوجة شوشي حلك الأمضة كرحية مركا إنه أرجني سلا إسلام كوجد جاي أدت كان مناسب كوهين لوجة شوشي وحوله يوصص أما تيرر وكتاجي هاي ومسؤولية عام كعدة قوانيس أما حتى أرمها خاص كأبا عدة الله درنايو وشروطها الله حرع شروطها قارنة وعام قارنة وكوسي خاص قفك مركا لأجا دين تيسية إسلام مديسية أرمها مركا لجي مادو شروطها الله حرع يوحكم إذا القوة والأمانة خصوصا الدليل لنا قرآني حديث بمالا بدن كسوغان إنه قفك نيهاي قف أود ولا شقدا إسلام مركانا لجو آمني كرا وأنا هاي قف تمردرا وخاينة سكلا هدي لورد إيجا شقوين كي وحا لورد يبيا الأقوياء والأمناء تدك أودنا له آمن كان إيها خيامة لهين وحا لقا إلى علينا يا الضعفاء الخونة تدك تمردرا إن وحبا ومد أوسو كردينين خيامة بدنا اللغلق يعون عن كود وبدين سلا سوء عقل جاي الشرع قبا كينيا نبي الله موسى عليه السلام سيدين أكسون هاي مركي عادوا جيبوا كعرف فرعوني قلاديس حقا يمدي يبوك عيو ننكي وناك سنايا صالحة هاب الله كرمي علماء التفسيرنا إلى هذا النبي شعيب وها لبدي سيها بلاد ميت كم إذا بود راوح موسى ويا نكا أرجع ما أنت يدين ورابيا ويا إنتاني ويا مركي ويا دايما لا ويا مي أبهد إن أنت أسي دلب يوقد أنت أبهد واحد ترى الشقة سيابو استأجره فإن خيرا من استأجرت القوي الأمين قفت شقسي سوح أو ناقص قف أودنا الشقة أوله أماننا له قف كأد ساعتك جرن وإذا سنتك مجرت بالين إن أنت ساعات دي وحقبت أرجع ورابي أي كبرت النبي نبي موسى ساد راد أودي سبع أكتي أمانة دي سيدين تأكتي أخلاقيات كي سبع أكتي codsiga ay u qadintay uu ka aqbalay aabaheedna wixii laga filayay iyo wax ka wanaagsan ba inuu fuliyay quraanka ka marxaati ka cadeeyay marka arintaasi aad iyo aad bay muhiim u tahay in loo eego qofka shaqada qabanaya quwadii la eegay iyo awoodiina way kala duwan tahay marka xagga dadka la eego oo awood waliba waa wixii la qabanayaa bay la xidhiidhaa tala hadii ay tahay cadow la iska celiyay ciidamo la horkaca iyo cudud military hadii ay tahay de waxay u baahan tahay ragii munaasibka ku ahaa xirfadeedana laha aqoonteedana laha geesinimadeedana laha ila ilaahay baa wuxuu waacidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribad al-khayl turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum ila awoodna la cadowgana cabsi garin karta xirfadiina la waa in la helaa rasuulkuna wuxuu al-harb khud'a dagaalku waa xeelad سيدا دراديد بأصحابتي دقالك يقاني مركي سوء إسلامين بهقامي بنبي وكرقين سيدا خالد بن وليد عمرو بن العاص
niman lagu yaqaanay bay ahaayeen quwada iyo xirfadda dagaalka markiibana way ka midho keeneen sidoo kale haddii uu qofkani waxa uu qabanayaa yahay xukum ama garsoor isaguna waa inuu ehelkeedii yahay oo go-aan qaadashadii wanaagsanayd iyo xigmaddii iyo miisaankii arrimaha uu miisaami lahaa macrifadii iyo aqoontu waaqica u lahaa cilmiga sharciga aqoontu u lahaa intuba waa inay taallaa oo waa inay jirtaa oo aanu ahayn qof khaa'if ah oo aan go-aanba gaadhi karayn ila ilaahay baa wuxuu uhi falaa takhshaw nnaasa wakhshaw walaa tashtaruu biaayaati illaahi hamanan qaliila waxaa markaa la diidan yahay qofkii aaminba ha ahaado oo wax khiyaamo yaanu lahaanin daacadba ha ahaado laakiin haddii waxyaabaha qaarkood uu la ciirciiri karo waa laga daynayaa ama uu nexnexi karo ama dadaan naxariis mudnaynba uu naxariisanayo waa kaa ka joojiye nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabiga abidarba waxaa kaloo laga ilaalinayaa qofka qawiba ha ahaado laakinahu khaa'in wax soo saar wuu leeyahay aqoon maadiya buu leeyahay wuu shaqaynayaa waxbuu kasbayaa oo dhinacyadaa horumar buu ka keenayaa wuxuuba laakiin isaga dhaafi maayaan ama meelaan meeshii ahayn buu marinayaa ama ummaddiibuu majara habaabinaya quwadiisii iyo awooddiisu mar haddii khiyaama la socoto xalla waxay ka faa'iido tahay ma jiro waa sida xilalku casrigan aynu marayno caalamulislaami ay u badan yihiin ama gaaladuba ay ku eedeeyaan waxay u bixiyeen adduunyada saddexaad gaalkiibaa muslimkii u faanaya wuxuu leeyahay waa dad ducafo ah waa dad corruption iyo la-aruush badan markay tiriyaan qaa'imad u sameeyaan waddamada caalamka ku nool musuq maasuqa iyo xumaanta iyo maamul xumada meelaha boqol wixii ka sarreeya iyo caalamulislaami gelinaya waa nasiib daro waxaa ka mid a shuruudaha loo xidhaya alxifdu waalcilm qofkan inuu wixii ilaalinayo waa arrin kasii khaasan ammaanada aqoonna leeyahay oo shaygan cilmi uu leeyahay oo tii hore quwad bay ahayd laakiin cilmiguna waa lagama maarmaan wixii la qabanayaba in qofka loo diranaya uu cilmi u leeyahay sidaa daraaddeed ba haddii mucallim maaddo dhigaya uu yahay waa inuu maadadaa mutqin ku yahay oo uu sugayaa diin iyo maadi mid kasta ha ahaado shaqada qofkii loo dhibaya iyo waxa uu qabanayo waa inuu aqoonteeda leeyahay oo casrigan aynu joogno cid aan cilmi lahayn waxba looma dhiibto waliba waxaa loogu daraa inteebuu qofkani waayo aragnimo iyo khibrad leeyahay si shaqadaasi ay u quruxsanaan karto waa miisaanka arrimaha la saarayo ilaahay baa wuxuu ka warramay reer banu israa'iil markii ay caarideen ama ka hor yimaadeen ninkii daaluut lo odhan jiray ee madaxda looga dhigay waxyaabaha lagu doortay buu nebigu u sheega wuxu uhi wazaadahu bastatan fi lcilmi waaljism wallahu yu'tii mulkahu man yashaa wallahu waasicun caliim wixii lagu xulanayay buu leeyay idinku reer hebel baa ka hadlaysaa iyo reer hebel baa soo talin jiray iyo dadkii talin jiray maaha kani waa luqadaha dadka liita ay ku hadlaan laakiin ninkani cilmina wuu leeyahay dagaalku cilmi uu leeyahay awoodna ilaahay wuu siiyey oo qof wax ka tari kara weeye dagaalka hadday dhacdaba qofku ciddaan taaba inaanay jirin uu arkayo ammaanadii ummaddu inay dayacmayso isagana ilaahay gacantiisa uu ku badbaadin karo waxa uu markaa inuu codsadaa way u bannaan tahay bay leeyihin culimmadu waaba siduu sameeyey nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين markii waxa xabsiga ka soo baxay ninkii boqorka u yimi waxa uu maanta ninaanu aaminsanahay dhawaata xilna waa ku dhiibayna waad naga ag dhawaanaysa isaguna fursadda inuu ummadda uga faa'iideeyo abuu doonay isagoo naftiisa waxba u raadsanaynin kadibna waa kii lahaa ijcalnii calaa khazaa'ini al-ard innii xafiidun caliim waxaad ii dhiibtaa dhaqaalaha ummadda iyo beeraha iyo meelaha kaydka aqoonna waan u leeyahay waanaan ilaalin doonaa marka mowduucu waa mowduuc ballaaran khudbadduna inay dheeraato maha waynu sii wada insha allahu laakiin waxaynu baraarujin lahay haddaynu qabaa'ilka nahay iyo haddaynu shakhsiyaadka nahay iyo haddaynu mas-uuliyiinta nahayba xilalkan aynu ka cabanaynu leena waxbaa la qaban waayey diintiibaa waxba loo qaban laayay dalkiibaa waxba loo qaban laayay dhaqaalihiibaa sida noqday waddooyinkii meel walba laga cabanayo marka hore ama wax la dooranayo ama cid la magacaabayo haddii aan loo xulin shaqadan ciddii munaasibka ku ahay
dee guuldarradaas iyo ceebtaasumaa marka dambe imanaya sidoo kale waxaynu arkaynaa dadka shaqooyinka gaarka ah cid u diranaya ama sharkadaha ama shakhsiyaadka shuruudahan ay qofka u xidhaan imtixaan baa la gelinayaa tartan buu kusoo baxayaa aqoontii baa laga eegay markaa haddana dib waxaa loogu noqdaa qofkan yaa yaqaana ammaanadiisa si aynu ugu aamini karno waxeenna iyo xoolaheenna kaana waxaa loo helaa qof damiinahiyo iyo qof yaqaano oo diintiisa taskiyeeye iyo waxaa lasii marayaa in marka la yidhaahdo keebaa bilaa balwada dadkani ha sinaadaan inta kaloo dhane oo cilmigii ha wada lahaadaan oo jaamiciin ha wada ahaadaan haba wada tukadaan oo dad diinle haba wada ahaadaan oo cilmiga yaqaana laakiin keebaan balwad lahayn hadduu jaadkiiyo sigaarka cuno dee waxaynu ku fakan karaa oo waa qof dee haliilaya oo yaro walafsan marka arrimahaasoo dhan marka la isu geeyo waxaa inoo muuqatay aynu arkaynaa shaqooyinkii gaarka ama waxaan la yidhaahdo brivatka qaybahaasi inay ka horreeyeen wixii public ahaa ama arrimihii dowladda iyo maamulkeenna caamkaynu wada leenahay ku saabsanaa way ka dheereeyeen wixii gaarka ahaa saa daraaddeed ba had iyo jeer dadkeenna muddo inaga maqnaa dibadda ka yimaada markay eegaan waxay odhanayaan mushkiladiinnu waa kala socotaan oo wixii gaarka ahaana wuu dheereeyey ee shakhsiyaadka iyo sharkaduhu ay lahaayeen wixii caamka ahaana waa fadhiid markiiba qofka soo dega madaarkeenna ka yimaada iyo inoo soo galaa labadaas u arkaya marka waa inaynu fahamnaa sirta meesha ku jirta iyo wixii xun siduu ku saxmi karo laakiin kolka xil la magacaabayo ama cid la dooranayo intaynu dhagoolayno inaynu marka dambena cabanno waa arrin isdhaafa marka baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayran allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم